sulux ayay samaantu ku jirtaa. dagaalada sokeeya dhaawac weyn oo dhaygidiisa dhib tahay ayuu u geystay habdhismeedka bulshada Soomaaliyeed oo wadaagi jiray deegaan, xukun iyo xeer. waxaa meesha ka baxay is-aaminkii, is-aqbalaadii iyo is-tanaasulkii bulshada ka dhexeeyay. tusaale ahaan dagaaladii dhex maray ururka SNM iyo dowladda Siyaad Bare wuxuu dhaliyay khasaaro aad u baaxad weyn. Soomaalida badankoodna ay ula garaabeen gaboodfalka iyo xadgudubka meesha ka dhacay. wax yar kadibna dagaaladii sokeeye ayaa Soomaalidoo dhan ku baahay, taasoo dadkoo dhani ay wada saameysay oo ay taabatay. waa tii halqabsi ama halkudheg loogu dhigay xabadi keento iyo xabadi saarto. laakiin dhibaatada ugu weyni waxay tahay xamaasadii dagaalada sokeeye ayaa dhaliyay laba kooxood oo midda koowaad oo ah kuwo goosashada u ololeeya oo inta kalena u sawira dad xun, iyo kuwa labaad oo ayagana la yooyootama ama gaashaanka u daroora oo isku daya in si indhala ay sanka uga geliyaan wax la yiraahdo muqaddas iyo midnimo aan la taaban karin. runtii midnimo iyo kala go' midkii roon rabbiyaa og. in la midoobo iyo in la kala go'o waa arrin u baahan dood cilmiyeed ama dood furan una taala dadka iyo geedi socodka taariikhda. waxaase fiican in loo maro waddo ka fiican habdhaqanka khaldan ee hadda loo marayo. runtii qasab iyo yootan wax laguma gaari karo. waa in laysqanciyaa, laysuna garaabaa. waxaa loo baahan yahay garnaqsi degan iyo maskax wax garata oo u furan fikradaha kale ee walaalkii. colaadda sidaan ognahay khasaare mooye dheef lagu xushaa ma leh. ogow, col nin galaa laga waraystaa. markii aa fiiriso suugaanta awoowayaasha Soomaaliyeed oo ay nooga tageen, kuwa ayaa waano noogu filan. mahmaayadoodii waxaa ka mid ah: ninkii habeenkii codkaaga yaqaano, maalintiina raadkaaga yaqaano, lalama coloobo. xaajo war ku aado, war ma looma doonto. rag waxaad walaal uga weydid, waran uguma heshid. rag waday oo waayay waxay walaalo ku dhaamaan. rag idaa kuguma daayo, aanu isdayno ayuu kugu daayaa. sidoo kale walaalaha warxumatashiilka u adeegsanaya baraha bulshada ee laablakaca iyo caadifada ay hogaaminayso, waxaan ku boorinaynaa inay taa beddelkeeda ay nabadeynta u adeegsadaan baraha bulshada. ogow, xuriyatul qowlku waa mas'uuliyad aad u ballaaran oo walaalayaal carabkiina ka adkaada. Soomaalidu waxay tiraahdaa afxumo nabadna waa kaa kaxaysaa, colaadina wax kaagama tarto. uli waa qabowdaa, erey xumise ma qabowdo. erey xumi urukici. runtii taariikhda dunida waxay ina baraysaa haddaan Soomaali nahay, wax wada jir lagu gaari waayo laguma gaari karo tafaraaruq. dhibaatada ugu weyne ee u dhacday waxay ahayd waxaa markiisa hore halaabay alifkii heshiiska midnimada, taasoo nagu dhibtay ama ku dhibtay bulshaweynta Soomaaliyeed albaqrihii ahayd in la helo qaran Soomaaliyeed oo raaga. maadaama tii hore ay khaldantay, Soomaalidu waxay tiraahdaa taladii xumaata iyo gudniinkii xumaadaba dib ayaa loogu noqdaa. bal dib aan ugu noqono walaalayaal heshiiskii midnimada. qolo walbana ha keento qorsho qof walba Soomaaliyeed u cuntama. waxaa la yiraahdaa haddaanan indhaha iska arki karina, bal uun danta guud isu garab socda. dunida maanta waa duni halis ah. wadiiqada kaliya aan ugu badbaadi karnana waa inaan isweheshanaa. ugu dambeyntii waxaa yidhi diila mudan: haddii dhanka siyaasadda laga tago ama laga baxo, bulshada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaali weyn weli waa ay iswalaashadaan. marka laga eego isguursashada, ganacsiga iyo ismartigelinta, waxaad arkaysaa ganacsi madax bannaan oo ay wadaagaan Soomaali weynta oo dhan oo qabiil walba leh. sidaasoo kalena waxaan ka rajaynaynaa dhanka siyaasadda inay uga walaaloobaan siday ganacsiga ugu walaaloobeen. waxaan ku boorinaynaa in ganacsiga iyo isguursashada la xoojiyo. suuqyada gobollada dalka oo dhan la isku furo. sida taariikhdu waxay xusaysaa qaaradda Yurub ama deegaanka Yurub
colaadoodii qotada dheereed oo dadka badan ku baaba'ay waxaa walaaleeyay ganacsiga markay suuqyadooda isku furteen anagana suuqyadeena aan isku furano si aan u helno insha Allah nabad waarta sidoo kalena waxaa loo baahan yahay rabitaan sida quraanka ilaahay uu ku yiri in yurida islaahan yuwaffiqu Allahu baynahuma hadday ay rabitaan sulx jirto ilaahay wuu waafajinayaa marka waa inaan la imaanaa rabitaan qalbigana isku furnaa hadduu ilaahay yiraahdo waa walaalkiin Baazil Busuri iyo barnaamijkii horumari ummadaada baarakallahu fiikum